qaada turuqa maala togoga jeexda beera tabaca badar talaala qaraha tuunsha nimcada diin ah ku tanaada bismillaahi raxmaani raxiim meeshaan waxaa la yidhahdaa balliga waxaa la yidhahdaa beertan waxaa la yidhahdaa ballaayaan baa la yidhahdaa waagi hore waxaa la odhan jiray balle abaar waxaa loo qabi jiray dhul disirtii aan waxba ka bixi karin baa loo qabi jiray laakiin maanta waa ujeedaan alxamdulilah wax walba waa ku yaalin geed ka baxa Soomaaliya oo aan ku oolin ma jiro waxay soo saartaa saytuun baa ku yaala liin baa ku taala timir baa ku taala dhinaca kale magaalada meel oo dalxiista weeyaan waa la sugu yimaadaa maalinka jimcaha meel laga gala malaha anigu marka talahaan waxaan ku bixinayaa in dhulka haddii laga shaqeeyo waxbaa ka soo baxaya aynu dhulkeena ka shaqaysano talahaan waa soo jeedinayaa waxaan kaloo rabaa inaan ka faa'iideeyo laba geed oo aan ka bixi jirin loo qabi jiray Soomaaliya inuusan ka bixi karinin baa ka baxay meeshan geedka la yiraahdo saytuunka kan waa jawaafo waay ma saytuun ma laakiin saytuunkii Sham ka bixi jiray baan waxaan ku beeray hal geed baan ku beeray oo tijaabo ah geedkaas wuxuu noqday geed aad iyo aad u tabargalay uu noqday marka Soomaaliya oo dhan waxaan u sheegayaa saytuunka kii Sham ka bixi jiray Soomaaliya waa ka bixi karaa hal geed baan soo qaaday $200 baan ka soo baxshay nin Suuriyaana la soo qaxay geedka $200 baan ka baxshay maanta waa geed weyn weyn marka saytuunka nadiifka ah waa ka bixi karaa Soomaaliya oo dhan waa ka bixi karaa waxaan ku dhiirigelinayaa imaaraadka waa laga helaa Turkiga waa laga helaa meel walba waa laga helaa halkii geed wuxuu jooga $1 buu jooga Soomaalida dhan ka faa'iideysto habeerto geedka la yiraahdo saytuunka ma jawaafo ma saytuun baan ka hadlayaa saytuunka Sham waynu beeri karnaa waddankeena waana ka baxayaa intaan ka iibinayay wuxuu leekaa halkaas buu jooga maanta intuu leeyahay wuu jeedaa hadda wuxuu ku jiraa 1 sano iyo 2 bilood buu ku jiraa waxaan filayaa hadduu sii joogo 2 sano dambe inuu miraha dhalayo haddii alla idmo geedkaas waa saytuunka kii quraanku sheegay weey geedka waxaan rajaynayaa Soomaaliya oo ka baxaya waxaan ku guubaabinayaa Soomaaliya oo siiba koonfurta in geedka la doono hadday rabaan aniga telefoonkaygu waa 7946 asagoo iiba anaa keenay imaaraadka keenay 10 kun oo geed waa keeni karaa marka geedkaas Soomaaliya loo qaybiyo ninkii rabaana imaaraadka waa laga helaa Turkiga waa laga helaa meel badan baa laga helaa geedkaas waa saytuunkii rasmiga waana baxaya Soomaaliya waa ka baxaya tijaabada anaa sameeyay waxaan leeyahay yaan loo kala harin baan isleeyahay laftigiisu waa baranadii macaanid weeye haddii ilaahay ka dhigo tijaaban ku wadaa haddii aan tijaabada ku guuleysano oo aan ogaano geedkaas inta uu dhalo oo kiilo ka soo baxda waxaan u bedelaynaa ilaa iyo dhowr boqol ilaa adigu muxuu ahaa dhul fara badan baa insha Allah waxaan inaan geliyo marka bataatada macaan haddii ilaalno marka laakiin tijaabada ku guuleysano aad uga baxaysaa waddanka lama soo koobi karo inta nooc ka kooban tahay kan waa babaaygi way saas u dhalaya kan waa geedka la jawaafaha way asaguna kaas waa liintii dhinaca waxa ka baxayo dhan waa liintii waxa ka baxayo kala dhinacaas waa khasabkii geedahaas waa khasabkii muxuu ahaa ka bixi jiray jawhar waa kana waxaas oo wada khasab weey maanta waxay la tahay ciyaalku iska bismiisan doonaan bay la tahay khasabka ma tirin karno geedaha ku yaala meeshan nooc timirta waxa ku taala 240 geed baa ku taala oo timira sanadka dhow 60 geed baa noo dhalay sanadkan laakiin waxaan dhalaysaa ilaa 200 baa dhalaysaa hadii ilaahay idinkum tahriibin dhalinyaro oon tala xumaanin dhalinyaro isku tiirsado waddankiina wax u tara waddankiina wax u tara